bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada faaqiidada rugta ganacsiga Soomaaliya iyo sirta guud ee suuqa bakaaraha qaybteedii labaad. qaybta koowaad waxa aynu kaga soo hadalnay magaca suuqa bakaaraha iyo sida uu ku yimid iyo waqtiga uu soo bilowday. qaybtan waxa aynu kaga hadli doonaa soo shaacbixii suuqa bakaaraha. magaca suuqa bakaaraha waxa uu dunida ku soo caan baxay markii lagu soo riday diyaarad Mareykanku oo lahaay sanadii 1993. suuqu waxa uu ka koobnaa waqtiga laba goobood oo waaweyn, waa Cabdalashideeye iyo Cirtugte. Cabdalashideeye waxa uu waqtigaas caan ku ahay samaynta dukumentiyada sharci darrada ah, halka Cirtugte asaguna uu ku caan baxay iibinta hubka. kadib markii dawladii Soomaaliyeed ay soo xoogeysatay waxa gebi ahaanba istaagay falalkaasi sharci darrada ahaa ee lagu qaban jiray labadaasi goobood. suuqa waxa hadda xarumo ku kala leh shirkadaha xawaaladaha, isgaarsiinta, cunnada, bagaashka iyo gaadiidka. suuqa bakaaraha waxa ku yaalo qiyaastii 21,000 oo xarumood oo ganacsi. sidoo kale waxa ku yaalo 7,000 oo dhismo. intaa waxa sii dheer waratada banaanka. ganacsatada suuqa bakaaraha waxa ay xiriiro kala duwan la leeyihiin wadamada dariska sida Kenya iyo Ethiopia, kuwaasi oo ganacsigooda uu isaga goosho xagga dhulka. sidoo kale gadisleedu waxa ay ka soo dhoofiyaan dhar, qalab dhisme iyo sonkor wadamada bariga dhexe, bariga fog iyo wadamo kale oo dunida ku kala yaala, iyagoo u sii dhoofiya Kenya iyo Ethiopia. sidoo kale shaaha, qaxwada, basasha iyo bataatiga ayay sidoo kale ka soo dhoofiyaan dalalka Kenya iyo Ethiopia. halkaasi ha inoo joogto qaybtii labaad. qaybta xigta inta aynu ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe saar, gambaleelkana taabo si aad ula socoto qaybaha kale. mahadsanid.